qoraalka horta la soo qoray oo maaragtay laga soo qoray waddanka Kenya waxa weeyaan wax runtii saxna aan ahayn khaladna ummadda Soomaaliyeed oo waddankan ku nool iyo kuwii ku soo qaxay oo qaxootiga ahaa loogu dan leeyahay wax xenophobia in loogu sameeyo waxaada waxyaabihii waayii hore ka dhacay Nairobi oo shacabkii la isku dayay Kenyaanka ahaa in walaalahoodka Soomaaliga ahaa laga hor keeno waxaas oo kala u dhigmata weeyaan waatay hadday jiraan dad ay garanayaan oo shakhsi oo maaragtay ay leeyihiin waa al-shabaab ay sameeyaan maxaa u diiday inay qabtaan kala howlgalaan dadka ku shaqo lahaa oo ay wararka u geeyaan laakiin waxa iska kuteen oo sibitiraadka waxay u qoraan oo kale oo ummad idin lagu condemn gareynayo waa been waxbana kama jira meeshay u badan tahay wax cad inaan aragnimo wax la aamini karana ma aha waatay mudane Faarax Macalin markaa ma waxaad leedahay haba yaraatee ma jirto in waddanka Kenya ama dawladda Kenya ay xiriir la leedahay kooxaha ka soo horjeeda dawladda iyo dawladda lafteedaba taasoo macnaheedu tahay labada dhinacba dawladda xiriir bay la leedahay laakiin xiriir ay la leedahay kooxo dawlad ka soo horjeeda ma jirto maayo sidaad u ogsoontihiin kooxaha ka soo horjeeda dawladda waa kooxo isla wada ognahay marka dawladdiiba 10 maaragtay kooxo oo yar oo dhex socday iska jiraan oo iyada maaragtay isku tilmaamayaan ilaa waan ogsoonahay tagti iyo awoodda ay dawladda leedahay xamar ka dhisan oo garab bay u baahan tahay laakiin wax dawladda ka soo horjeeda oo dawladda Kenya ay maaragtay taageero siinayso waxba kama jira mid waynu isla wada ognahay marka taayada waxaan u arkaynaa UN kana aan ku sheegay sidna ka weyn Soomaaliya iyaga ma jirto maxaa xoolihii Soomaaliya inta ku jajabsanayaan alladda Soomaaliya ka jirtay nabadgelyo xumadii waxa soo dhan iyaga inta badana meelo badan markii sidaba loo xisaabtamay ka soo galayaan warbixintu waxay sheegaysaa in ganacsato reer Kenya qaarkood ay xiriir hoose la leeyihiin kooxaha al-shabaab iyo xisb al-islaam taasi oo macnaheedu tahay in mararka qaarkood kooxahaasi ay si toos ah u yimaadaan waddanka Kenya oo loo sameeyo lacag iyo dhaqaale ururin taasoo kale ma tahay mid laga dareemi karayo Kenya oo oran karaysid markaa warkaas waxba kama jiraan warka asaga anigu kuma oran karo waxba kama jiro maxaa nin maaragtay mujrim oo la raadinayo oo maaragtay dambiyaal galay waddan ka galay wuxuu ku tashanaya iyo wuxuu sameyn karo wax nin kasta ogaan kara ma laha laakiin wax cad oo caan anaga aan ogsoonahay oo systemka dawladda oo way dhisan tahay dawladdan aan ku sheegay nabad sugideedii wax kastoo dhan oo wax dhisan wax shay iyo maaragtay kuteen ku shaqaysa ma aha maxaankaas oo kale maba ka dhici karto oo cadaan lagu sameynayo waddanka gudihiisa maxaa kooxaha maaragtay hadda ka dagaalamaya gudaha oo dadkii laaynayo oo diinna isku sheegayo dadka meeshay u badan yihiin Kenya joog way ka soo horjeedaan tamada qarsoomi karaan oo arrin maartay lacag iyo lagu aruurin kala ma laha laakiin dad yaro dad waxaa jira Soomaali oo muslim oo garbeer laho iska shaqeysta waddanka abayda garbeer buu leeyahay haddii ninka Soomaali oo garbeer malamtayd kana galo oo tukada la yiraahdo kooxaas ka tirsan yahay waa sheeka annaga na soo gurtay hadda ka hor markii la rabay in lagu xadgudbana lagu gaadi jiray mudane Faarax Macalin sidaan la soconno ilaa iyo 2500 oo ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ka tirsan ayaa lagu tababaray gudaha waddanka Kenya ciidamada waa ciidamo maartay loogu talagalay oo booliis oo tababar iyo wax kasta lagu sameeyay inta lagu siiyay Uganda tababartay oo Djibouti baa tababartay oo maxay kaga duwan tahay kuwan inta lagu tababaray iyagana lagu kaalmeeyo dawladda ku meel gaarka marka arrinta waa waxa iyadu aan kahay waxaan maaragtay Soomaali markii danteeda guud laga shaqeynayaba مثل dadkii maartay dhibka ku waday ay meelo yar oo gaaban oo isku dayaan garaadkooda yar intay xisaabaan in maartay wax ka tusaan arinta iyada waxa weeyaan arin maartay loo gegsanayo ma aha weena ka hortageen anaga mudane Faarax Macalin ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee lagu tababarayo gudaha waddanka Kenya xageemad qiyaasisan inay ka howlgali doonaan anigu horta ciidamada iyo maartay wasaaradda gaashaandhigga oo Soomaaliya ama Kenya maartay taayada waa hawsheeda kuma jirto laakiin qiyaasta waxa weeyaan ciidamada horta runtii booliis ahaan ayaa loo tababaray ku howlgalkoodana gobolladii laga may noqon doontaa saan qiyaasaya gobolladana waxa weeyaan gobollada annaga nagu xigo oo jaarka noo oo ay ka mid tahay Gedo iyo Jubbada hoose oo meelahaas ay deegaanadii dadka deganaa
يا laga soo qoray markii horeba marka kuma siinayso maskaxda fiyow iyo dadaalka anaga aan sameynay in maal kale laga howlgeliyo nin kasta meeshii uu u dhashay oo bisuu ka deganaa Soomaaliya ba waqti dambe say noqotay laakiin hadda howlgalkan ugu horeeyay aan qiyaastayda ay tahay inuu ka howlgeli doono anana dan ugu jirta maxaa national security ka Kenya waxa dan ku jirta in gobolada ugu dhow anaga ay dawladda kumeelgaad gacanta ku dhigto sifa maartay uusan dib iyo hanjabaad iyo goodiskan lagu hayo uusan dib nooga iman